يعني لugtu soo dhaqdhaqsatay si uu gurigiisa hore ugu gaaro farxadda ula qaybsato qoyskiisa iyo gabadhiisii weligii waan jirtay waxba ima keentin si uu uga farxiyo tallaabada soo dadajiyay waayo fiirso qofku meesha xiiseynayo ama uu meesha doonayo uu dan ka leeyahay tallaabada u dadajiya balse meesha uu yara diidan yara hiifsan aad buu yara gaabiyaa xubnaha isku toosan iyo xaadiya kubkiyo gacmaha xurmiya sharaftaada badan waxa dhacay ninkan tallaabada soo dadajiyo gurigiisa ku soo cararo wuxuu soo ordo gurigiisa ku soo dhaqsadaba gurigiisa soo garaacay wajigiisa farxad ba ka muuqata aan hore uga muuqan wajigiisa uu isbedelay bashash ba ka muuqata maanta aad buu faraxsay uu hiikacsan maanta wuxuu isleeyahay farxadan waxa kula qaybsan doontaa gabadhaadiga kula qaybsanaysa gabadhaadi muranka badneyd waayo markasta guriga imaado wala qabsan jiray way dagaalami jirtay haddii xitaa ay dagaal ka weydo way caytami jirtay ninka way caay jirtay way faqiir baa tahay seen kugu geli karaa faqiir baa tahay noocan baa tahay haddii ay cayda ka weydana way dagaalami jirtay qacan bay qaadi jirtay waxa dhacay ninkii aad u soo farxay maanta guriga uu soo garaacay waxa ka furtay gabadhiisii deeto ha ka furto guriga uu soo galay soo farxsan wuxuu maanta keedis baan ku hayaa ina soo gali qolka gabadha way fikirtay abidkii ku moono keedis baan ku hayaa abidkii wajigiisa soo farxsan maad arag maxaa jira maanta gabadha way yaaban tahay deeto way soo raacday waxay soo socdaan boqolkiiba raacday qolkiiba u gashay qolkii markii ay la gashay ayaa waxa tiri maanta maxaa jira maxaa maanta waa noocma maxaa wada maanta waxay farxadan iyo bajaajnimadan iyo degdegan ka muuqda maanta ninkii isagoo aad u faraxsan buu xuri maanta wax keedisaan ku haya wad aad ula yaabi doontaan ku haya wax ka farxin doonaan ku haya maanta wuxuu soo saaray hilibkii uu soo saaray wuxuu yiri ho kiiloogan hilibka maanta inaga iyo ciyaalka bay noo sameeyay gabadhii inta si laaw eegtay sida waxa hilibkii soo qaaday tii ma kiiloogan baad ila tin maanta ugu lahayd keedis baan ku haya sidii waxaan yeesasaba inta kiilooga soo qaaday hilibka bay tiri ma kiiloogan baad maanta leedahay waxbaan ku siyaa ila maalilaas shirtin wuxuu ku yiri waayo qayrkay hadday dadka kala siiyaan wax badan hadday 20 kiilo siiyo 50 kiilo siiyaan de anigu intan awoodo waan ku soo jaray karaankayga hayda badnay wali in islaamaadku ku farxi karaysa waan ku keenay maxaa siya waxa war qayrkay intan ma qaataan midda kale meebay jiro wixii lagu sameeyay la hilibkan ay la timi wixii lagu sameeyay la saliidi ma oo ma bihi oo xaqiiqo taariikh kale u gashay ninkii maanta kale muu filayn inay murmi doonaan inay isqabsan doonaan muu filayn maanta kale wuxuu islahaa waa maalinta farxadda wadaag lahaydeen